rooble ummaddu waxay malaha u haysataa inuu ra'iisul wasaare Soomaaliyeed yahay horta waa ra'iisul wasaare reereed in dhaweyd waxa hadalhaynta dadka iyo dalka ugu weyn ay ahayd dad maataa oo caruur iyo dumar u badan oo magaalada Laascaanood laga saaray kana saareen laamaha amniga arintaa ka hadalkeeda ayaan doonayaa inaan kelmad kooban ka yiraahdo Somaliland waxa saldhig u ah nabadgelyada waxa imika saxaafadiina waxay iga duubaysaa waxaan xildhibaan ku ahay waxa dawladnimadeenu ku jirtaa waxa shacabku ku nool yahay waxa dunida aynu ka iibinaa waxaanu bartaa ku soo gaadhnaa nabadgelyo Laascaanood mushkiladda ka dhacaysay ee soo noqnoqotay ee dilalka joogtada ah dhibanaha koowaad cidda ka ahayd wuxuu ahaa xisbiga wadani dilkii ugu dambeeyay Laascaanood ka dhacay ciddii lagu dilay wuxuu ahaa gudoomiyihii xisbiga wadani ee gobolka Sool isagoo sidoo kale ahaa xildhibaan golaha deegaanka ka tirsan markaste ka xisbi ahaan ka ummad ahaan ka xildhibaan ahaan waxaanu taageersanahay in la sugo nabadda Soomaaliland in ummadda nabadeeda loo ilaaliyo laamaha amniga ee wasiirka arrimaha guduhu kow ka yahay ee jananadu laba ay ka yihiin waanu ku barbar taaganahay ilaalinta nabadgelyada Somaliland iyo qarannimadeeda haddii aanu nahay xisbiga wadani dadka la saaray maatada nidaamka loo maray runtii nidaam qurux badan muuhayn dhaqan baa jira diin baa jira dadnimaa jirta kow waxay ahayd dadka in notice la siiyo in la yiraahdo ku diyaar garooba muddada inta laga inaad dalka kaga baxdaan waa dad nabadgelyo darra ay soo qixisay oo nabad Somaliland soo biday dadka dhaqanka iyo diintu ilaalisa waxa kow ka dumarka iyo caruurta wayna damqaysay runtii in dumar iyo caruur baylah iyo balanbal badani ka muuqdo banaanka loo saaro wax dhaqankeena dawladnimadeena dadnimadeena caado iyo curfu waxa meehay nidaamka dawladeed iyo sugidda amniga dalka laamaha amniga ka hor dhici mayno ma baarid bay sameeyeen waa kow ma dadkan dambi baa lagu helay ma maxkamad baa xukuntay inay baxaan ma xukun dawladeed oo laga sinaabo ahaa intee in laag baa notice la siiyay hantidooda ayaa la wareegi karaya sidee loola wareegayaa waxaasoo dhan waxa ahayd runtii nidaam iyo qorshe dawladeed oo adag in lagu galabay timay dhicin aadna taa waan uga xunnahay wayna damqaysaa hadda mar labaad in aad dawladdu ugu dhug yeelato wixii dhaawacaya qarannimadeena iyo quruxdeena iyo dawladnimadeena waan ku baaqaynaa arinta kale maanta doonay bartayna kaga hadla waxa weeyaan waxaan arkay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ninka Rooble la yiraahdo oo runtii ereyan naxli iyo nacaybshiyo muujinaya ku abuuraya ummadda Soomaalida Rooble ummaddu waxay malaha u haysataa inuu ra'iisul wasaare Soomaaliyeed yahay horta waa ra'iisul wasaare reereed dhalishu Somaliland ku dhaliilayana hadduu dhiigga shacabka Muqdisho jooga aanay isaga waxba laahayn anaga dhiigga shacabka Somaliland jooga dheema nagala qaalisan markay timaado ilaalinta nabadgelyada markay timaado dhowridda xuquuqaha asaasiga ee nafta iyo maalka iyo dhiigga iyo muwaadinimada Somaliland waa mid aanu kala simanahay xukuumadda waa mid aanu ku taageersanahay sugidda nabadgelyada xukuumadda annagoo mucaarida oo kala aragti duwan laakiin Somaliland baa namidaysan
waxaan leeyahay rooble mixnada iyo munaafaqada doonaysa inaad ka dhaxdhaliso ummadda Soomaaliland shacabkeeda iyo shacabka Soomaaliyeed haddii aad dadka wax u qabanayso qaraxyada Muqdisho ka dhacaya ee dadka soo qaxiyay wax ka qaban lahayd nidaam xumada Muqdisho ka jirta ee taandooyinka la isku dooranayo ee wax ka qaban lahayd shacabka dhibaataysan ee qowraca iyo qaraxa ka soo cararaya ee barta soo magan galay marka horeba kaama yimaadeen haddii nolol adiga ku bidaya adiguna wadigii Hargeysa nabadda iyo nolosha ku haystay ee joogay wadigii shacabka Soomaaliland ku dhex noolaa cid curfi iyo cuqdad ku haysan ma jirin waxaan ku leeyahay curfiga iyo cuqdadaad ummadda ku kala dhex abuuraysaa waa taa maanta Muqdisho aad ku baabiinayso waa taa taariikh xumada maanta aad ku leedahay inaad ka waantowdaa kuu fiican isku liskad ummadda isku lisay xisbi ahaan xildhibaan ahaan iyo ummad ahaan ma taageersanin dad Soomaaliyeed oo dalka marti ku ah in si degdeg loo saaro in hantidooda lala wareego waxaan kula soconana xukuumadda ma laakiin laascaanood iyo gobolka Sool Soomaaliland iyo duniduba waqtiga waxa ka dhacaya inay tahay ama dhibta ay tahay waa dhiiga dadka oo dhayal u daadanaya in dhiiga dadka la joojiyana wasiirka arrimaha gudaha ku taageersan jananadaan ku taageersan madaxweynaha ku taageersan shalay tolo cidii la dilayay ee baaskoolada lagu dhuftay ee meedkiisa naloo soo sheegay gudoomiye xisbiga wadaniga cid kale muuhay dabcan khalad uu dhici karaya laakiin in la boombooniyo oo waji siyaasi laga dhigo oo roob lagu ka dhigo waa ayaan dar Soomaaliland baanu ka simannahay mucaarid iyo muxaafidba adiga waxa ku taala aayaha shacabka Muqdisho ee filimada Hindiga aad ku dul shilaysaan inaad ka talisaan marna taandheer aad isku daawanaysaan oo isku dooranaysaan marna aad maarin kari laadihiin malaayiinka Muqdisho ku nool ee nabadgelyo darradu haysato ee dhiigooda iyo dheecaankooda maalin kastaba dhigihiina ku soo dhacaya ee qaraxa la beegsanayo laascaanood sababaad wax uga sheegtay xukuumadda Soomaaliland adigoo iyo qayrka toon uma taalo waxaan shacabka Soomaaliland ugu baaqayaa waxaan xukuumadda ugu baaqayaa gobonnimo nabadgelyo horumar wanaag ayuu Ilaahayna siiyay war dadka martida inagu ah war dadka Soomaaliyeed dadkeena la jooga war dadka nabadgelyada inoo soo biday war dadka birmageydada war dumarka iyo caruurta u badan aynu xaq dhowrno milkiiya maamuuska Soomaaliland ay lahayd aynu ilaalino oo talaabooyinka noocana ee insaaniyadda taabanaya ee dhaqanka taabanaya ee diinta taabanaya ee dadnimada taabanaya ha loo tala badsado si guud waxaanu ka wada simannahay mar labaad iyo mar saddexaad anigoo ku hadlaya afka xisbiga wadani afayeenka xisbiga wadani xildhibaanka aqlabiyadda shacabka Soomaaliland inaanu dawladdeeda Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland aanu ku barbar taaganahay inay nabadda sugto inaanu dhiiga Soomaaliland muwaadiniinteedu aanu dhayl u daadan wala awdal baanu ogolayn wala marood sheekh baanu ogolayn wala sanaag baanu ogolayn wala sool baanu ogolayn laakiin in laynagu siyaasadeeyo dadka martida inagu ama xukuumadana waxaanu ugu baaqaynaa inay arrimaha insaaniyadda taabanaya hoos ay waqto laakiin wixii amniga waanu taagan qolada Soomaaliyana waxaanu leenahay gaar ahaan ninka rooble waxaanu leenahay gaar ahaan ninka rooble waxaanu leenahay rooble waanu ku garanaynaa Hargeysaanu kugu garanaynaa Soomaaliland wanaagaad ku haysatay baanu kugu garanaynaa maanta kii Soomaaliland waxa kula hadlahay mati dunidana waxaad u sheegatay ra'iisul wasaare Soomaaliyeed laakiin anagu waxaan ognahay inaad ra'iisul wasaare reereed ummadda ligooyada ka daa naxliga iyo cuqdada iyo boqdiga aad ku kala dhex abuuraysana ka daa imikana haddaad dadka wax u qabanayso waa kuwa ku yimid rehabilitation u samee